بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. درسينا maanta wuxuu ka bilaabanaa aayada 30 ee suuratul baqara. ilaahay wuxuu leeyahay wadkur xusid waqti qaala oo yiri rabbuka rabbiga lil malaa'ikati malaa'ikti oo yiri inni aniga allah jaa'ilun waxa yeela fil ardi ardada dhexdeeda khaliifatan mid khaliifa. qaaluu waxay dheen marka malaa'ikti tajcalu ma yeelaysa ilaahayo fiha ardada dhexdeeda man miyad yeelaysa yufsidu fasahaadiya oo wayasfiku daadiya ad-dimaa dhiigaga walxaal naxnu anagu nusabixu aan ku tasbiixsanayno bihamdika anagoo mahadaada ku dheehan wanuqadisu aanan ku dahirayno laka adiga ku dahirayno oo aan ka dahirayno wax walba oo aan ku qalmin. qaala wuxuu yiri ilaahay inni anigu aclamu waxaan ogahay ma la taclamuuna waxadnaan ogeyn. meeshan waxaan ka guda galeynaa qisadii nabi aadam alayhi salatu wasalaam ku saabsaneed abuuritaankiisa iyo ilaahay subxaanahu wa ta'ala sheegidii uu sheegay malaa'ikta abuuritaanka uu rabo inuu abuuro aadam iyo malaa'iktu waxay ugu jawaabeen markii ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu damcay inuu abuuro aadam alayhi salatu wasalaam ayaa ilaahay malaa'iktiisa u sheegay wuxuu yiri saasaan yeeli doonaa. kadibna malaa'iktii waxyaabihii markaas ayaga u muuqday wax ka sheegeen. wa id qaala idtan waa darfu zamaan oo waqtiga tagay ayay daraf u tahay, sida idaa waqtiga soo socda ay daraf ugu tahay. marka wixii ku amal fali lahaana waa loo soo qadaraa oo waxa leeyahay wa id qaala ay wadkur xus oo sheeg nabi maxamedow oo dadka u sheeg id waqti u sheeg qaala uu yiri rabbuka rabbiga lil malaa'ikati malaa'ikti uu yiri inni anigu jaa'ilun waxaan yeelaa oo aan abuura fil ardi ardada dhexdeeda khaliifatan khalifa ayaan ku abuura. khalifa iyo khaliif labaduba waa isku macno, waxay ku kala duwan yihiin. khaliif jamciisu waa khulafa, meesha khalifa jamceedu oo khalaa'if ka yahay. khaliif marka waxa laga wadaa kuwa isdhaxla qaarba iyo qaarka kale dhulka ka dhaxlaan ayaan yeelaa ilaahay subxaanahu wa ta'ala. khaliif waxay noqon kartaa oo kale bimacnaa khalif al-khalif liman kana qabla midkii dhaxlaayay wixii isaga ka horeeyay oo waxay dhan ardada waa la deganaa jiray, malaa'iga deganaa jirtay ay dhan qaarkood qaar waxay dhan jinniga deganaa jiray. jinnigi markii aadam la abuuray alayhi salatu wasalaam ayay hareeraha ardada ku kala yaaceen. marka wixii deganaa jiray ayuu mid ka dhaxlaw dadkii deganaa jiray ardada ayaan abuura waa aadam iyo caruurtiisa. waxa kale oo dhici kara al-khalif macna al-makhluf alladhi yakhlufuhu ghayruhu, waxaan abuura mid ardada asaga laga dhaxlo oo ilmihiisu ay ka dhaxlaan oo jiilka ka horeeya oo ka dhaxlo ayaan abuuraa ilaahay subxaanahu wa ta'ala. wa aadam alayhi salatu wasalaam aadamna wa abul bashar dadka aabahood way aadam. qaaluu marka malaa'iktii waxay dhaheen atajcalu ma yeelaysaa fiha ardada dhexdeeda ilaahayow man miyad yeelaysaa yufsidu fasahaadinaya fiha ardada fasahaadinaya oo ku fasahaadinaya shirkiga iyo xumaanta iyo in ay ku tiiriyaan waxaada mudna ilaahayo oo yasfiku daadinaya ad-dimaa dhiiga daadinayo isgardaraysanaayo isleynayo isbaabi'inayo miyad yeelaysaa ilaahayo walxaal naxnu anaguna nusabixu aan ku tasbiixsanayno oo aan ku hufayno bihamdika mahadaada anagoo ku dheehan wanuqadisu laka aanana ku tahirayno wixii aan ku qalmin aan ka tahirayno. ilaahayo waxay dhaheen cibaada anaga kula joogna oo aan marna aanan ku caasinaynin oo marna ku tahirayna marna ku mahdinayna marna ku hufayne. ilaahayo kuwaan dhibaatada adduunyada ku soo kordhina maxaa abuurkooda aad ku falaysaa. hagee ka ogaadeen malaa'iktu in aadam iyo caruurtiisu ama reer aadam ay waxaan soo kordhi doonaan? waxay ka ogaadeen dhahan culimada qaar dadkii adduunyada ku noolaa jiray aadam ka hor ayaa falkaas oo kale sameey jiray dhahan jinnigii adduunyada ku noolaa jiray saas sameey jiray. qaarna waxay dhahan saas maahane
ilaahay yaa un u sheega subxaanahu wa tacaala way ogaadeen ilaahay yaana subxaanahu wa tacaala ogeysiiyey wa ilaa iyagu qeybka ma oga waxay dhici doona mustaqbalka dhici doona kama warqabaan haddaan ilaahay u sheegin subxaanahu wa tacaala marka ilaahay yaa u sheegay oo ogeysiiyey inay sifooyinkan qaarkood ay ku sifoogi doonaan marka waxay dhaheen atajcalu ma yeelaysaa fiiha ardada dhexdeeda ilaahayow man miyaad yeelaysaa yufsidu fasahaadinaya fiiha ardada dhexdeeda wayasfiku daadinaya addimaaa dhiigaga se ilma aadam waa isku gardaroonayaani walxaal naxnu anaguna nusabixu aan kuu tasbiixsanayno bixamdika anagoo mahadaada ku dheehan oo ku mahadinayna aan kuu tasbiixsanayna ho subxaana allah wabixamdihi aan leena wanuqadisu laka aanan adiga ku dahirayno ilaahayo wixii aan kuu qalmin oo naqaa'is ah oo dadka qaar kuu tiiriyaan aan kaa dahirayno qaala marka ilaahay wuxuu yidhi markay saas malaa'igtii dheheen innii anigu aclamu waxaan ogahay maa laa taclamuuna waxaadnaan ogeyn ayaan ogahayo arrintan xigmaan ka leeyahay maslaxa aadnaan ogeynaana ku jirta abuurka aadam masaalixduna waa ay fara badan tahay waxyaabahaas ilaahay uu sheegaho ishaara waxaa ka mid ah in aadam ilmihiisu aysan wada noqon doonin kulligood sida iyagu ay sheegeen oo ah kuwa dhulka fasahaadiya oo dhiigaga daadiya aysan wada noqon doonin oo kuwa saalixiina laga heli doono ambiye ilaahay iyo saalixiin iyo awliye ilaahay iyo shuhada laga heli doono iyo sidoo kale in waxa kaloo ilaahay uu ogyahay kaloo meesha ku jira waxay yihiin malaa'igta laftirkooda waxa ku dhex jira oo ibliis ah xikmadaha laga leeyahay marka abuurka aadam calayhi salaatu wasalaam waxaa kamid ah in la muujiyo oo la soo saaro ibliiska ku dhex jira malaa'igta ilaahay marka wuxuu yidhi innii anigu aclamu waa ogahay maa laa taclamuuna waxaadnaan ogeyn ayaan ogahay wacallama waa uu baray ilaahay aadam ayuu baray al asmaa magacyadii kullahaa dhammaanteed uma intaa kadibna caradahum waa uu bandhigay musamayaadkii cala almalaa'ikati oo iyaga uu bandhigay ilaahay faqaala wuxuu yidhi ilaahay ambi'uunii ii sheega biasmaa'i haaulaa'i kuwan magacyadooda in kuntum haddaad tihiin malaa'igay saadiqiina kuwa run ku sheegaya waxaad sheegteen qaaluu waxay dhaheen subxaanaka ilaah hufnaantaade laa cilma lanaa annaga cilmi nooma sugnaanin ilaa maa callamtanaa waxaadna bartay mooye innaka ilaahu adigu anta adiga ayaa alcaliimu midka cilmi badanaa ah alxakiimu xikmadana badan waayah markii malaa'igtii ay intaas dhaheen oo hadalkii hore ay dhaheen oo ahaa atajcalu fiiha man yufsidu fiiha wayasfiku dimaaa wanaxnu nusabixu bixamdika wanuqadisu laka ilaahayna uu yidhi innii aclamu maa laa taclamuun ayaa ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuu muujiyey malaa'igtii u muujiyey fadliga iyo fadiilada ou aadam leeyahy calayhi salaatu wasalaam aadam waa la abuuray markii la abuurana ilaahay aadam wuxuu baray wax walbo magac leh magacooda kadibna waxyaabihii magacyadaas lagu magacaabayay oo magacyadaas ka lahaa ayaa malaa'igtii loo soo bandhigay oo la hor keenay markaasaa waxaa la yidhi malaa'igay bal ashyaadan magacyadooda ii sheega ilaaha leh subxaanahu wa tacaala iyadoo ilaahay uu rabo inuu muujiyo fadliga iyo fadiilada uu leeyahay iyo dheeraadka ilaahay uu siiyey aadam calayhi salaatu wasalaam se fadliga waxaa bixiyey allah ciduu doono ayuu ciduu doono ka fadilaahay waxaana ilaahay uu ku fadilay aadam markaas waxyaabo ka mid a cilmiga waxaasoo ah ashyaada iyo waxyaabaha magacyada leh magacyadooda shay kasta magaciisa in ilaahay uu baro subxaanahu wa tacaala geedaha badaha bahallada xayawaanka kale waxyaabaha jamaadaadka magacyadooda ilaahay bara subxaanahu wa tacaala kadibna malaa'igtii loo bandhigo waxaa la yidhi waxyaabahan magacyadooda sheega waa gara waayeen markay gara waayeen oo ay arkeen inay xujoobeenna oo ay qaldameenna ilaahay u laabteen subxaanahu wa tacaala ilaahay marka wuxuu yidhi wacallama alla waa baray aadama nabi aadam calayhi salaatu wasalaam alasmaaa magacyadii ayuu baray ashyaadii magacyadoodii kullahaa asmaadii dhammaanteed uma intaa kadibna caradahum ilaahay musamayaadkii iyo magacyadaas wixii lagu magacaabayay ayuu wuxuu u bandhigay cala almalaa'ikati malaa'igta uu bandhigay malaa'igtiyaa lasoo hortubay faqaala ilaahay wuxuu yidhi ambi'uunii malaa'igay ii sheega biasmaa'i haaulaa'i ashyaadan hortiina ka muuqda magacyadooda ii sheega in kuntum haddaad tihiin saadiqiina kuwa run ku sheega arrinta ah ibnu aadam inuusan mudnayn in dhulka lagu abuuro qaaluu marka waxay dhaheen malaa'igtii subxaanak ilaahayow adaa hufan oo wax walboo nuqsaana ka hufan oo wax walboo xumaana ka nasahan laa cilma lanaa annaga cilmi nooma sugnaanin ilaa maa callamtanaa ilaahu waxaadna barta mooye ashyaadan magacyadoodana welina ma aada barin
marka annagana cilmigeenu wuxuu ku egyahay wixii aad noo sheegta bas innaka ilaahiyow adigu anta adiga ayaa alcaliimu kii cilmiga badnaa ah oo alxakiimu xikmada badnaa. qaala ilaahay marka wuxuu yidhi yaa aadamu aadamow anbi'hum u sheeg malaa'igta biasmaa'ihim ashyaadan ay iyagu magacyadooda gara waayeen magacyadooda u sheeg. falamaa goortii anba'ahum ou aadam u sheegay malaa'igtii biasmaa'ihim ashyaaday magacyadooda gara waayeen magacyadooda qaala wuxuu yidhi ilaahay alam aqul ma waana dhihin lakum adinka idiin dhihin malaa'igay innii anigu aclamu waxaan ogahay hayba samaawaati samaawaadka waxa ku qarsoon iyo walardi ardooyinka waxa ku qarsoon wa aclamu waxaan ogahay maa tubduuna waxaad muujinaysaan iyo wamaa sheegi kuntum aad ahaateen taktumuuna kuwa qariya ma waana saas idiin dhihin. ashyaadii magacyada lahaa markii ilaahay subxaanahu watacaala uu soo hortubay oo soo hordhoobay malaa'igta kadibna la yidhi malaa'igay magacyada asmaadan bal sheega oo ay sheegi waayeen oo gara waayeen ayna ictiraafeen cajzigoodii ayaa ilaahay subxaanahu watacaala aadam ka waransiiyo aadamow waxaa la yidhi bal dadka malaa'igta u sheeg ashyaadan magacyadooda. ashyaadan magacyadooda dhammaantoodna ilaahay hore wuxuu u baray subxaanahu watacaala nebi aadam calayhi salaatu wasalaam. marka ilahay wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi ilaahay yaa aadamu aadamu anbi'hum u sheeg malaa'igta biasmaa'ihim ashyaadan ayagu ay magacyadooda aqoon waayeen magacyadooda u sheeg. falamaa goortii anba'ahum ou sheegay ou malaa'igta u sheegay aadam biasmaa'ihim ashyaadii ay magacyadooda aqoon waayeen magacyadoodii oo ugu sheegay oo yidhi kan hebelaa la yidhaha kan hebelaa la yidhaha kan hebelaa la yidhaha qaala ilaahay wuxuu yidhi alam aqul lakum warma waana idiin dhihin malaa'igay innii aclamu waxaan ogahay hayba samaawaati samaawaadka waxa qeybka ahoo ku qarsoon iyo walardi ardada waxa qeybka ku qarsoon aan ogahay ma waana idiin dhihin horay wa aclamu waxaan ogahay maa tubduuna waxaad muujinaysaan. abuurka aan abuurayo aadam xikmaa laga leeyahay xikamtana waxaa ka mid a fadliga hadeertan aadam uu yeeshay iyo sida hadeer aadam macalimkaba idinkugu noqday oo wax idiin baray. wa aclamu waxaan ogahay maa tubduuna waxa aad muujinaysaan iyo wamaa kuntum taktumuuna waxaad haydan kuwa qariya. culamada qaar waxay dhahaan waxay muujinayeen waxaa laga wadaa hadalkoodii ahaa malaa'igta atajcalu fiiha man yufsidu fiiha wayasfiku dimaa'a ilaahayoma waxaad yeelaysaa cid fasahadida ardada oo dhiiga daadida. waa waxay muujiyeen. waxa ay qariyeen waa maxay? culamada qaar waxay dhahaan waxay qariyeen waxa waaye aaminaad ay aaminsanaayeen cid ayaga ka cibaado badan ama ka wanaagsan inaan adduunyada lagu abuuraynin. waxaa kaloo la yidhi waxa ay qarinayeen waxa waaye waxa malaa'igta dadku dhex jiraahay ee cid ku jirtaahay ay qarinayso oo ibliis ah oo ah isla weynanka oo isla weyn yahay iyo kibirka uu kibraayo iyo santaaga uu ka santaagayo abuuritaanka la abuuray iyo jiritaanka aadam calayhi salaatu wasalaam. waana arrin soo bixi doonta. ilaahay marka wuxuu yidhi wa aclamu wa ogahay miyaan idin dhihin maa tubduuna waxaad muujinaysaan malaa'igay iyo wamaa sheegi kuntum aad ahaydeen taktumuuna kuwa qariya. waid qulnaa wadkur xus id waqti qulnaa aan nidhi lilmalaa'ikati malaa'igtii usjuduu u sujuuda liaadama aadam u sujuuda fasajaduu waa sujuudeen ilaa ibliisa ibliis mooye abaa waa diiday ibliis asagu sujuudii wastakbara waana iska kibriyo waa ka santaagan inuu sujuudo wa kaana wuxuuna ahaaday ibliis min alkaafiriina kaafiriinta mid ka mida ayuu ahaaday. markii fadligii aadam caddaaday iyo waxyaabaha ilaahay subxaanahu watacaala uu ku fadilo dheeraadka ah oo ay ka mid tahay in ilaahay waxyaabaha magacyada leh magacyadooda dhan alla uu baray malaa'igtiina ashyaadaas ay aqoon waayeen aadamna oo ashyaadaas magacyadooda malaa'igtii macallim ugu noqday ayaa ilaahay subxaanahu watacaala aadam haddana si kale usii fadilo waxaa lagu fadilay in soo dhoweyn fiican la soo dhoweeyo oo malaa'igtu ay soo dhoweeyaan soo dhoweyntaasoo ah weliba in loo sujuudo. sujuudan culamadu waxay dhahaan waa sujuud taxiya waa sujuud salaameed. sujuudda salaantu say ku banaanaatay markii laga waramayana waxaa la yidhi xilligaas sujuudda sujuudu taxiyada waa banaaneed. aadam calayhi salaam malaa'igtu waa u sujuudeen oo ilaahay yiri u sujuuda. waxaa kaloo noo imaan doona suuratu yuusuf noogu imaan doona nabi yuusuf calayhi salaatu wasalaam oo walaalihiis iyo waalidkii ay u sujuudayaan markii masar ugu yimaadeen. marka xilligaas waa banaaneed sujuudda sujuudu taxiyada oo la isku salaamo in la isku sujuudo. laakiin oo bini aadamku isku sujuudo bini aadamka makhluuq ay isku soo dhaweeyaan oo isku salaamaan. laakiin diinta nabi maxamed lagu soo dejiyay calayhi salaatu wasalaam arrintaas waa lagu nasakhay lama ogola makhluuq inuu makhluuq u sujuudo. culamada qaarna waxay dhahaan sujuudan xilligaas cibaado ahayd hadeerna cibaado maaha. xilligaas cibaado ahaydoo ilaahay yaa amray subxaanahu watacaala malaa'igtu inay arrintan sameeyaan. shayga ilaahay uu amrana isagaa cibaado ah diidmadiisaana kufriya gaalnimo ah. waagaas marka
عبادة إهد سجودة لو سجودة آدم عليه الصلاة والسلام ما دام إلهي أو إدمايو أو أمرايو أو رالكيه ديد مدي للديدان ووحي إبليس أو كوغالو بي أما أو بحي دينة إسلام كما أو نقضي شيطان كي إبليس ونقضي واذكر حسد وقت قلنا آنري للملائكة ملائكتي أسجدوا سجودا لآدم آدم سجودا فسجدوا سجودين ملائكتي إلا إبليس مويه استثنوه ومنقطع هدي إبليس ليلة هذا ملائكته كميد معها هدي ليلة ملائكته كميد هنا متصل أيوه نقناه فسجدوا ملائكتي وسجودين إلا إبليس وملائكتي كميد مويه هدي ليلة ملائكته كميد معها وحليه فسجدوا وسجودين إلا إبليس لكن إبليس أبا ودي ذا ليه إبليس ملائكته ما كميدها مس كميد معها ولما قاروا حيدين ملائكته كوتشلي لكن وافد ضروبه وافد نوبي وأرنت أنا كوفد نوبي أرنتنا وحيد أرن حكمة لجلية ولما قاروا حيدين ما يكميد معهن إبليس ملائكته كميد معهن وحانو دليل إن إبليس أو ملائكته كميد هين سورة الكهف أيضا نوع ما دونته إلهي وليه سبحانه وتعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه سيصيحان واساس إبليس إنه ملائكته كميدهين ملائكته أوسى كميدهين سإلهي وحليه سبحانه وتعالى كان من الجن جنه كميدها ففسق عن أمر ربه إنه ملائكته كميدهين وحبها دليل كوا وحا كميدها ملائكته النور لغا أبوري السجن وحا لغا أبوري دب أيا لغا أبوري إن دب لغا أبوري إلهي سبحانه وتعالى سجى الشجاع يضو إبليس لغا حكايونا يمرك لي إبليس ومحاد آدم أو سجود ويده وحوي أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين أنا كخير بدن أنا قد دبا دقا أبورتي أساقنا روبات كأبورتي سينو سجودا مرك أسوعد دب كأبوران وها ماشا ملائكته النور كأبورين ساسو كله ملائكته وحمد الآن أسوقنا عرور وليه هاي أو الموليه أتتخذونه وذريته أولياء من دنيا إلهي سبحانه وتعالى شيطانك يا عرورتيس مياد أولياء كدقانا يسانسو كذا إذا ووح عرور له ملائكته أهل الجنة أسوقنا وأهل النار ملائكته لا يحصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وحي إلهي سبحانه وتعالى أو أمر مع سيان أسونا ذو الشيطان كان إبليس بواسو إلهي مركو حولي فسجدوا وسجودين إلا إبليس لكن إبليس أبا ودي سجودي واستكبر وانا اسكبريي وكان وحنا هذا من الكافرين قال هذا متكمدا وقلنا وحنا نري يا آدم آنري وقلنا وحنا نري يا آدم اسكن دق أنت أدقى وزوجك حاسكاذبا الجنة جنة دق وكلا عنا لبدينه منها جنة حقيدة رغدا أي أكلا عنتان أو رغدا واسعة حيث مالك عنا شئتما أدونتان جنة كعنا ولا تقرباها نودواننا هذه الشجرة هذه تن الشجرة شجرته جيتك أو فتكون أدهاتان مركز دواتان من الظالمين كوا ظالمين تا إلهي سبحانه وتعالى مركو آدم أبو ري ملائكتين أو سجودي إبليسنا وماشت كفة دروبي آدم إلهي فيرتي سوحكو أبو ري حواء كدبنا آدم يا حواء ولا اسكو غوريه وحنا لسلدتي جنة عدننا لسلدتي جنة الخلد جنة إلهي لسلدتي جنة لدتي سيدا صحيحة هو جنة إلهي سبحانه وتعالى وصمد كتيل أيها لدتي وحنا الله شيء شيطان إنه عدو إيهي اسكي إلاليا ليري جنة أسنا وحا ليري مال والبو جنة كميدة يجيد والبو جيدها جنة كميدة وادعوني كرتين وقورا كرتين ساربتين أورا حيستا لكن هل كاس جيد أو جيدها جنة كميدة اسكي إلاليا لا يدين ما أقوله جيد كاسو جيد كوهاي الله أعلم كدبنا شيطان وسواسيو ماشا كشقيستو واسم بالرحي آدم يا حواء جيد كيو وحويرو عنا كليا ما وصل هنا وحو الشيء جيد كان وحلوغا ريبي قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى آدم موكتو سيا شجرة يجيد كقفك عناه أو وارايو بغرتوينا أو هلايو بغرتوي يوارتان أن بابئين أو هلايو جيد كان وايو نبي آدم عليه الصلاة والسلام مركو حو سيرجيت كان وحلوغا ريبي أما يساسته وحوري إبليس كيا وحو كليا نبي آدم وهداد جيد كان عنتان ورقين ما لما نايسان بقرتوينا وذهليسان وحو مركا كدا دعيه آدم إن وحا آدم لوغا ريبي جيد كان إنا يتهي ديدما لو ديدايو آدم بقر نقضو إيوه ديدما لو ديدايو آدم إنو نقضو عيد وارته وايه إلهي مركا وحوري وقلنا وحان يا آدم اسكن دق أنت أدقى يوزوجك حاسكادو الجنة جنة دقى وكلا عنا منها جنة حقي إذا رغدا أي أكلا عنتان أو رغدا واسع وصاد دونتان عنا حيث شئتما مال والبود دونتان جنة كعنا ولا تقربها هود واننا لكن هذه تن أو الشجرة شجرة أو جيتك
فتكونا أو أهاتان مركز أدرد عنتان من الظالمين كوا ظالمين تأه فأزلهما واو سنبريرحي الشيطان شيطانك عنها أي بسببها فأخرجهما وكسر مما كان وحي أي هذين فيه دحديثا وقلنا وحن اهبطوا هابتا بعضكم حال قبلكين لبعض قبل كالي عدو وعدو يهي ولكم أدين كان في الأرض أرض دحديث أي واحد كوسقنا هذا مستقر مكان السقنا شيء ومتاع إلى حين إلى وقت لقى قاراي فأزلهما وأوسم بريحيي والليل فأزلهما وأوكف جينا والليل فأزلهما وحو كردي قفكين والليل يا خطيئتي فأزلهما لبدودي وأوسم بريحيي الشيطان وشيطانك عنها ضمير كوتشلا هذاس وحلو عليا شجردي جندنا ولو عليا هدي شجرده لو عليو وحليها فأزلهما وأوسم بريحيي إبلي وأوسم بريحيي لبدودي آدم يا حواء الشيطان وشيطانك عنها عن بمعنى الباء السببية بمعنى الباء السببية نغنى عنها أي بصابها بصاب الشجرة شجرة سببت أي كسم بالريحي عنها وحكوا له علي كرا ضمير كوتشي لجنة مركب وحليا فأزلهما وأوكسم بالريحي أو كفجي الشيطان وشيطانكو عنها أي عن الجنة وكفجي شيطانكو آدم يا حواء فأخرجهما وأوكساري لبدو ذا مما شيء حديث وكساري كان أي هايين فيه شيء حديث والجنة إلهية وقلنا وحانر مركز اهبطوا هوبتا آدم يا حواء بعضكم حال قبلكين لبعض قبل كالي عدو أو عدوية أيقول الله بها اهبطوا هوبتا ليه وواو الجماعة الله استعمالي محيا لوحيدا علماء قار أقل الجمع واثنان جمع وحوير واللبو مركا اهبطوا هوبتا بعضكم حال قبلكين لبعض قبل كالي عدو أو ويه وعكروا لقوا ظاهرين علماء قار dadka ay dhali doonaan loola jeeda marka waxa la yiri ihbitu hoobta adinka yaruurtiinuba bacdukum xaal gabalkiin li bacdin gabalka kale cadow oo cadow u yaho cadow isku noqon doontiino dhiigagaad iska daadi doontaan waa wax hada adduunyada ka jiray kana jiri doona in dadku ay cul isku yihiin iyo cadaawo oo mar walba islaynayaan walakum waxaan idin sugnaaday fil ardi ardada dhexdeeda reer aadamow mustaqarrun makaan sugnaasho iyo deegaan ardada idin kugu sugnaatay samadu meel aad degtaan maaha ee jannadu كتجا ديجان كيني وارول كتجا ومتاع يراحو أيها إدين سجناتي iyo waxaad ku raaxaysataan ayaa ardada idin kugu sugnaatay ila xiinin ila waqti laga gaaro waqtigaad ka dhimanaysaan ama laga gaaro qiyaamaha laga gaaro fatalaqa aadam wa aw la kulmay oo ka qaatay aadam min rabbigiis ayuu wuxuu ka qaatay kalimaad ka qaatay fataaba alayhi ilahi wa kataba aqbala innahu huwa tawwabur rahim آدم إله سبحانه وتعالى توبدي أيوه وافجي كلمات أنا إله سبحانه وتعالى وكلا كلمي كلمات كاس والنائمات دونان إله سبحانه وتعالى أسوه الشيء جاية إن إله يوحى وافجي إن دهان قال ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ساسا إله وافجي مركي إله وافجينا وإتوبة كينا مركي أركان إني قفين توبدين إله وكاقبله هبل لك سودة تشيو جندي يمشي دجنايين يكون راح يسايم ولا سودة تشي لكن قفكي أي قالين وإكتوبة كيران إلهنا وكأقبل التوبة دي إلهي مركو حوري فتلقى وأوقات آدم من ربي حقي سوحو كقات كلمات فتاب عليه إلهي وأوكتوبة أقبل آدم مركو توبة كيران إنه محيي لإلهي هو سوء التواب الرحيم الله توبة أقبل كبناء ورحريس تبناء أيوه هذا قلنا وحن إهبطوا هوبتا منها جندك هوبتا جميعا حالاتهم فإما يأتينكم هدو ذي ما مني أنا حقي حالو كهذا هدى هنون فمن تبع قفك رعى هدايا هنون كيغا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا قالوا بنا وكذبوا بيني بآياتنا أولئك كواسي أصحاب النار نار أصحاب تدعي هذين هم أيوب فيها نار الحذاء خالدون كوارايا نبي آدم عليه الصلاة والسلام يحواء جندي ولا قسودتي دول كان ديغان كينو يهالير كذب محا دولك إذن كو إيمانايا دولك إلهي سبحانه وتعالى هنون إذن كو سودتينا هنون كاس عدي قادة ترير آدمو فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون إلهي يريو دتك سوى أهل الخير عدي هنون كقادوا إذا ترير آدمونا كفار نقنايان كفارتنا عذاب أو سقنادا غير آدمنا لبدا سيكاكوب مايان دد حق قاتي دد حق بينية إلهي مركوح يقولنا وحان إيه بطغو هوبتا آدم إيه حواء منها جندك هوبتا جميعا دمانتين فإما يأتينكم أي فإن يأتينكم ماذو واصلة وتوكيد إن يما أو لسويد قامي وايو ماذو واصلة وتوكيد انت شرطية ده
ayaa la fasiraa waxa leeyahay fa imma ya'tiyannakum ay fa in ya'tiyannakum haduu idin yimaado minni aniga xaggayga hudan hanuun idin kaga yimaado faman tabi'a ciddi raacada hudaaya aniga hanuunkayga reer aadamow falaa khawfun wax cabsiyo calayhim dadka ciddaas dushooda ma ahaanin walaa hum mana ahaanin yaxzanuuna kuwa murgaayo tiiraanyoonaya walladina kuwii kafaruu gaaloobay oo wakadabuu beeniyay biaayaatina aayaadkeena reer aadamow oo reer aadam kamid ahow ulaa'ika kuwaasi asxaabun naari naarta asxaabteeda ayay ahaadeen hum ayagu fiiha naarta dhexdeedayna khaaliduuna ku waarayaan darsigeenuna maanta halkaas noo joogo wallahu subhanahu wa ta'ala ala wa alam wa billahi at-tawfiq